waqtiyada ka mid ah ayaa waxaa dhacday gabadh dhalinyaro ah oo masaakiin ah oo reer Danley ka soo jeeda ayaa waxay u shaqo tagtay reer kale si ay nolosha reerkooda u maareyso. Balse xaqiiqatan ibni aadanka waxaa ku dhex jira dad markay wax haystaan aad u xun oo dabci qallafsan leh. Dadka u shaqeynaya ee masaakiinta ahna ku tacadiya ku gabad fala. Iska daa inay xaqooda siiyaane u geysta tacadiyo waaweyn oo jidhkooda halis u geysanaya. Aabbaha reerkaas ka dhihi waxa uu maalin walba gacan qaad ku samayn jiray gabadha masaakiinta dhalinyarada ah. Jugo waaweyn ayuu u geysan jiray, isagoo gumaysan jiray, bahdili jiray, garaaci jiray maalin walba. Ugu dambeyntii gabadhii garaacii maalin kasta odaygaasi garaaci jiray wuxuu ku sababay inay indho beesho. Wuxuu gaadhsiiyey heer ay indhihii weydo. Markii dambe gabadhii indho beeshay, dhib ka sii weyn ayay u geysteen oo ah inay iska eryadaan oo iska caymadiyaan. Markay ogaadeen inay waxba qabsan karin oo aan iyagana waxba u taraynin ayay bannaanka u saareen. Waqtigu wuxuu socdaba muddo kadib wiilkoodii ka mid ah wiilashii ay dhaleen ayaa guursaday. Gabadh xoogaa ka fog oo ayna qaraabo ahayn ayuu guursaday. Gabadhii markay uur qaaday, ilmihii u horreysay ee dhashay wiil buu noqday. Wuxuu ku dhashay wiil aan indhaba lahayn oo indhaba loo sameyn baa dhashay. Way la tacajabeen, meel kasta la geeyey. Waxaa la yidhi dadka inta badan qaraabada ah markay isguursadaan ayay sidan oo kala dhacdaa, balse labadan qof qaraabana ma aha. Dhakhtarkii wuxuu yidhi ilmaha dambe soo socdaayay waxay u badan tahay inuu caafimaad qab ku dhalan doono. Ilmihii labaad ee u dhashay oo gabadh ahaa si caadi oo dabiici ah ayay u dhalatay, iyadoo indho qabta, wax arkaysa oo caafimaad qabta. Muddo 7 bilood kadib, 7 bilood oo keliya markay gabadha jirto way indho beeshay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa kagama teginay. Duqii odayga reerka lahaa ayaa maalin isagoo xaafadda dhex jooga istaaga ka dhacay. Istaaga ayuu ka dhacay sidii tawakhaad oo kale. Islaantii sidoo kale. Mar ay midi uus ku tagtay oo xaaladdu faraha ka baxday oo islaantii ay sankaraad tahay oo odaygii sankaraad yahay oo wiilkii carruur wada curyaan oo indhala ay u dhasheen ayay islaantii waxay soo xasuusatay gabadhii ay tacadiga u geysatay ee masaakiinta ahayd ee maalmihii ay masaakiinnimada darteed ku gumaysan jireen ay gaadhsiiyaan heer ay indho beesho ayay soo xasuusatay. Waxay ogaatay inay dulmi geysteen, inay gabadh xun geysteen, balse waa goorma? Waa xilli ay midi isku tagtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu addaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar. Ha u malaynin nebi maxamedow, ma waxaad moodaysaa buu ilaahay leeyahay inuu ilaahay moogan yahay ouna ogeyn kuwa daalimiinta ee gardarrada badan leh waxay samaynayaan. Iska daa inuu ogaan waaye yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar. Wuxuu ilaahay dib ugu dhigayaa maalin baa lala sugayaa oo laga aargudan doonaa ay indhuhu cabsi darteed ay saa u taagmayaan oona ishu gabadhsanin. Qofku markuu aad u naxo ee wax shoog ah ku dhaco indhuhu ma libiqsadaan. Maalinta ayna indhuhu libiqsanayn ayaan la sugay nabi ilaahi subxaanahu wa tacaala leeyahay. Kuwan waa loo soo dedejiyey. Haddii xataa cafiso maxay qaban kartaa maanta? Walaalayaal, qisada waxaanu ka baranaynaa gaboodfalka iyo gardarrada iyo tacadiga iyo dulmigu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u neceb yahay. Wuxuu ilaahay xadiisul qudsi ku leeyahay innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynaka muxaraman falaa tadaalamu. Waa ibni aadanow, dulmiga naftayda waan ka xarimay, cidna addoomaha ka mida ma dulminayo. Dhexdiinana xaaraan baan ka dhigay, falaa tadaalamu ha isdulmiyiina. Waxyaabaha ugu khatarsan waa kii nebigu lahaa xadiis kale, iska ilaali qofka la dulmiyey ducadiisa iyo habaarkiisa, waayo laysa baynahu wa bayna allaahi xijaab. ducadaas ama qofka la dulmiyey ee loo itaal sheegtay isagiyo ilaahay waxba uma dhexeeyaan.
macnaha ilaahay subxaana watacaala degdeg buu aqbalaya. qiso labaad oo isla mawduuca dulmiga ka hadlaysa ayaan ku daba xigsiinaya. laba nin ayaa safar wada galay oo saaxiibo ah, way israaceen. nin ka mid a ayaa hanti fara badan sitay. labada nin waa laba nin oo saaxiib oo isgaranaya, si xog og, nin walba wuxuu haysta is og. markay meel cidlo amarayaan, iyagoo meel cidlo amaraya ayaa shaydaankii midkii kale wuxuu ku tashkiiliyey inuu ninkan dilo, xoolihiisana dhaco, halkaa uu ka baxo. waxbuu shaydaankii u qurxiyey. wazayina lahum ashaytaanu acmaalahum, shaydaankiibaa yaa wax isugu tostoosi. wallahi waa iska fiican tahay ninkan hataad bad rudha ka jarto, meel cidla aad maraysaan, cididma arkayso, halkaa hadaad ku disho oo iskaga tegto, cid alla cidka ogaanaysaa ma jirto, hantidaana waad qaadanaysaa, fursada baad haystay ka faa'iidayso. shaydaankii baad ninkii kilkiliyey, wuxuu shaydaankii ku booriyey, ku adkeeyey, ku celceliyey inuu ninkaa dilo. ugu dambeyntii falkii foosha xumaa ayuu geystay. ninka saaxiibkii ahaa ee aaminay ee la socday ee safarka wada galeen ee ay duurkaa ciladaa wada marayeen waa uu dilay, hantidiina waa uu qaatay. ilaahay waa asturo, cidna maysan ogaanin. ninkii sidii baa lagu waayey. muddo kadib oo hantidii ninkii au qaatay, oo ninkii au dilay, oo xoolihiisii au ku macaasho dhacay, muddo kadib ayaa isla isagii dembiilaha ahaa wuxuu soo maray meeshii ninka ku dilay. lafihiisii iyo wixiisiibuu yuu arkay. markaasuu intuu qorigaa soo qaatay ayuusaa lafihiisii ugu garaacay. waan ku dilay, waan xoolahaagiina waan dhacay, cidinama ogaan. xaaladda uu ku garaacaya lafaha usha la dhacayo ayaa lafihii ninkii meydkaa ka mid intay soo booday, waa ilaahay qudradiisii ayay isha ka gashay ilaa lafta dambe ee maskaxdii tagtay. cabaad ninkii uu la cararay oo iska soo saari kari waayo. wax walba waa sameeyey, waa boodbooday, wax walba siduu u cararay dadku la dhex galay. waar wuxuu yihi ninkii hebel ahaa anuu igu maqan yahay, anaa dilay, xoolihiisii anaa dhacay, maantana ilaahay subxaana watacaala wuu iga argudayo waxaa maanta isha igaga jira waa lafihiisii. sidaasaan anu ku tegayaay, waar sidaa haloogaado halii cafi. ninkii isagoo ishii ay laftii kaga taagan tahay ayuu sidii ku gooriyooday, macal khaatum xumuu ku dhintay macnaha. marka walaalayaal, waxaan isku boorinaynaa in dulmiga laska ilaaliyo, oo qofka muslimka xaqiisa ilaahay baa dhowray. xoolihiisa lama qaadan karo, waa xaaraam. dhiiggiisa lama daadin karo, waa xaaraam. in aad qofka laska ilaaliyo dadka muslimiinta iyo dhammaan qof kastoo bilaad inaad dulmida iska ilaaliso. intaan muuqaalka xiga kulmayno, waxaa idin leeyahay ramadaan kariim, ilaahay soonka naga aqbalo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.